وايد السلام وكبت حاج waxaa iskale fariintan walaalkay maxamed bk fariin ayaa noo soo dirtay aniga iyo fanaaniin badan oo waliba anigu aan ugu horeeyo fanaaniin badan baad magacyadooda xustay marka waad ku daawaday si fiican aan maaragtay u dhageystay fariintaadi walaalkayo waxaa jirta arrin markaad fanka ka bixaysay ayaan hore ka fanka bixaysay arrin waxaa jirta na soo gaartay oo fanaaniintu si hoose isugu sheegayeen laakiin aan wali adiga lagu weydiin qofkii ku weydiin lahaayna waa aniga run ahaantii marka maadaama aadan hadda adiga aadan sida caadiga ahayd fanaaniinta ula soo xiriirin laakiin aad jeceshahay inaad shaashadaha iyo TV-da ka soo hadasho waxaan ba jeclaystayba oo igala sii fiicnaataba maadaama maanta aad soo hadashay inaan arrintii aan maqlay ee na soo gaartay inaan hadda si public kugu weydiiyo kor nagala socda BK ii gaarsiiya su'aashaas iyo arrintaas waxa ka jira su'aasheeda publican kugu weydiiha insha Allah jawaabtaana ka rabnaa adiga iyo abtigay Axmed Beef marka muhiimadu waxay tahay wax walba adduunka waxa fiican in daacad laga noqdo mashruuca haduu jiro BK ina tiraahi dar ilaahay aan fan uga baxay qaladay kugu tahay waliba anoo kugu taageerayo hadii dhaqaalahaas mashruucaas dhaqaaleed uu jiro inaad qaadato waliba anoo kugu taageerayo oo waxaan kugu taageerayana ay tahay inaan fanka Soomaaliyeed faa'iido uusan lahayn oo dhaqaale laga sameeyno kulligan anagoo fanaaniin aan wada qirayno inaad dhaqaale uga baxdo iska daa fanaaniinta shacabka xataa kugu taageerayo laakiin inaad sheegto dhahdid aniga dhaqaale xumaan uga baxay fanka dhinacaanay iiga shidantay waa ii kala kacsan tahay mashruuc baana jira ee fanaaniinta Soomaaliyeed oo mashruuc khayr ku jiro oo waxa soo baxay aad fankina iska dhaafayso lacagti ma aragtay aad fan ku sameyn lahaydna ayadoo lagu siinaayo oo sadaqa ah aad helaysa adoon dhibtoonon heysini ka soo baxa inaad tiraahay ahayd horto saas inaad tiraaha saxsanayd marka muhiimadu waxay tahay wax walba adduunka waxa fiican in daacad laga noqdo mashruuca haduu jiro BK ina tiraahi dar ilaahay aan fan uga baxay qaladay kugu tahay waliba anoo kugu taageerayo hadii dhaqaalahaas mashruucaas dhaqaaleed uu jiro inaad qaadato waliba anoo kugu taageerayo oo waxaan kugu taageerayana ay tahay inaan fanka Soomaaliyeed faa'iido uusan lahayn oo dhaqaale laga sameeyno kulligan anagoo fanaaniin aan wada qirayno inaad dhaqaale uga baxdo iska daa fanaaniinta shacabka xataa kugu taageerayo laakiin inaad sheegto dhahdid aniga dhaqaale xumaan uga baxay fanka dhinacaanay iiga shidantay waa ii kala kacsan tahay mashruuc baana jira ee fanaaniinta Soomaaliyeed oo mashruuc khayr ku jiro oo waxa soo baxay aad fankina iska dhaafayso lacagti ma aragtay aad fan ku sameyn lahaydna ayadoo lagu siinaayo oo sadaqa ah aad helaysa adoon dhibtoonon heysini ka soo baxa inaad tiraahay ahayd horto saas inaad tiraaha saxsanayd marka walaalkayo hadii uusan mashruuc jirin bal arkaya waxa la yiri maxaa la dhigi jiray waada iyo hebelow maxaa kulansiiyay waa mahmaadaas waaweynka waaye ii saxa cid taqaana ii saxday waxa adigu xaa kulmiyay hebel iyo walba hebel maxaa kulmiyay BK mashruuca inuu jiro waxa anigu uga sii shakiyay oo aan ku sii aaminay xoogaay علشان تشكيلين تادا سائد واي عم بيفا برونا صوت داهيب او دور سنه عيلاش بيها ku xareysna oo wax baraayay oo maanta labado xadiis noo sheegi karo adigu adoo xabad aayad quraan aan ii sheegi karin aad maanta waxay ku cilciliyay fanka hoog buu ahaay soo baxay ilaa shaqo laga rabaa waa lagu soo xujeeyay saan dareemayo mashruuca bad beginning waa idin sheegay mashruuca qaadashadiisa waxay tahay hadda lacag rabto fanaaniinta soo tashkiili fanaaniinta soo dub laakiin aan qarsato ma aha anagoo kula ogaad noo sheegi lahayd lacaga jirto soo yaa leena dhiilahayd markaas ugu lama yaabeen moogta marka walaalkay BK yaaba heli karaba toobadkeen fanki iska daa aad umadaasi ta kulansiiso caawa labada inta iska heshay israacdo aad dambi kugu filan ba hadii uu basi kala xataa uu ahaa waayay dambi oo qiil kasta loo raadsho fanka oo xataa muusiga la iska dhaafo leeyahay muusiguna waa iska qurxinaysa la iska daayo dadka la isu keeno dhibka kaaga imaan kara marka waxay isku sameeyaan aad dambi noogu filayd lacagteena xaaraan kaba dhigi kartaba walaalow marka adoo BK guri ka dhistay anigu fanka guri kama dhisan raasamaalna kama lihi adoo guri ka dhistay waxa aad uga maarantay baasa iyo qaadashadeeda waaye salaad cali jar wuxuu dhigi jiray lacag waa qaadasho codkuna waa anige yaa lacag waa qaadasho mashruucu waa qaadasho fankuna waa iska dhaafid markaas adoo mashruucu jiro mashruucaas waa qaadasho fankuna waa iska dhaafid laakiin qishka si babliga u sheeg umadana u sheeg ya toobadkan with the baso cid diidaysa anigu inay jirto uma malaynayaba fanaaniinta Soomaaliyeed oo wada qaxan hore ka qaadayeen hore ka dafayeen hore just like that